dadka qaarkood yani waxa weeyaan carabkooda dikriga ayay bareen dikriga ilaahay baa carabkooda bareen markaasaa xataa hadduu iska soconayo ilaahay buu xusaya ilaa uu carabkiisu la qabsaday qof walbana wixii uu aadka u qaban jiray unba hadhow ka soo butaacaya dad badan baa markuu sakaraadku qabto waxa weeyaan hadal maaragtay dabada qabsada oo shahaadadii loogu taag waaya oo waxyaabo uu ku celcelin jiray oo maaragtay u badnaa ayuu ku hadaaqaya marka ay sakaraadku isugu yimaado waxay dhacdo waa la arkay dad badan oo khalqiga ilaahay ka mid oo saalixiinta la arkay quraan baa mar allaala markaa wax kusoo habsadaan ayay dabada qabsadaan wallaahi waxaanan iloobaynin waxaan filaya in ahayd 99 ama 98 nin saaxiibkay ayaan dhakhtar geeyey waxaa la yidhi ninkan waa inuu camaliyad waa inuu qalliin galo waa la qala arday baan wadahay labadayduba markaa meeshaan cilmiga ka baranayno meeshii aanu deegaanka u ahayn ma ahayn waan soo kaxeeyo berberaan keena isagoo aad u xanuunsanaya dhakhaatiirtii aan dhakhtarka ugu keenay baa waxay yidhahdeen ninka waa in la qala waa la qala ehelkiisi ma joogo waddankeena jaarla oo fog buu jooga markii la qalay ee irbadii suuxinta lagu mudayay ee qolkii qalliinka laga soo saaray dee wuu isla maqan yahay oo mukhadarood waa la suuxiyey muddo 2 saacadood ku dhow ayuu wuxuu ku celcelinayay subxaana allahi wabixamdi cadada khalqi waridaa nafsi waziinata carshi midaada kalimaati khalqigii dhakhtarka joogay isagu isma oga waxay ku soo urureen qolkii la dhigay qol waadho dad kaloo la qala yaalaan dadkii wax aamusa iyo wax ooyay noqdeen baynamaa kuwa kale oo dhakhtarka lagu qalay ay waxay ku hadaaqayeen aan sheegi karin markuu iskii u aamusay oo soo meeraabay kadib muddo kadib ayaan waxaan weydiiyey su'aal waxaan ku ori miis ogeyd wixii aad ku hadaaqaysay markii lagu suuxiyey saa intuu gacanta iigu dhegay oo si xooga ii qabtay ayuu igu yidhi walaal ilaahay uu ku fadaxaleeyahay oo dhan yaa unahay wuxuu yidhi tolo maxaad ku hadaaqay maxaad tolow lahayd markaasaan ku yidhi waxaad ku celcelinaysay subxaana allahi wabixamdi cadada khalqihi waridaa nafsi wasinata carshi ilmaa ragaga wax ka soo tiri kaasuu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi calaa xisaani ama kelmad lamida waxaan isweydiiyey anoo isaga la fadhiya talow haddaad halkiisa joogi lahayd maxaad ku hadaaqi lahayd maxaa adi kaa soo bixilaato nin kaloo walaaladay zumaladayda ka mid a hooyadii baa la qalay cerigaaba anagu joogna markaase waxay ku celcelinaysay intii ay ku jirtay irbadii takhdiirku ay suuxdintu qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad dadka qaarkood heesay qaadayaan heeso iyagoo qaadaya kaga baxda waar hebelo waa shahaado adaaba sheegay kaad la hadlaysa waxaad ogaataa waxa aad naftaada barto ee ay carabkaagu qabatimo ayuu marka aad dhibi kugu habsatee kugu kadiso carabkaaga waxaasaa ka soo baxaya yataqarabuuna ila almaliki bificlihim طاعته وترك للعصيان